ma tahay arday ka cabsanaya exaamka ama qof rajaynaya inuu mar dhow galo exaam? Ha cabsanin, waxaan kula wadaagi doonaa ducooyin aad u qiimo badan kuwa oo haddii uu Alle idmo kuu sahli doona inay yaraato murugadaada iyo cabsidaada. Waa hubaal haddii aad ku ducaysato ducooyinkan soo socda inay natiijo iyo weji fiican kala kulmi doonto imtixaankaaga. Ka hor inta aadan ka bixin gurigaaga oo aadan aadin hoolka ama meesha aad exaamka ku galayso, waxaan kugula talinayaa inaad weyse qaadato oo aad akhrisato aayatul kursiga 5 jeer. sidoo kalena aad akhrisato aayadda ku jirta fi suurati Tawba ee ah laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim 7 ilaa 14 jeer inaad akhrisato. sidoo kalena aad akhrisato suuratul jinni ama suuratul quluuxiya 1 jeer iyada oo dhammaystiran, ama waxaaba fadli badan inaad akhrisato 3 jeer oo dhammaystiran, haddaba midkii aad awoodo. kadibna aad ku ducaysato ducooyinkan oo aad ku soo celceliso ilaa aad ka tegayso meesha exaamka aad ka galayso adigoo aanan hadal kala dhex gelin ilaa hadal lagama maarmaan ah maahane. haddaba ku soo celceli ducooyinkan oo dheh: allaahumma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxusna idaa shi'ta sahla. allaahumma innii astawdicuka maa qara'tu wamaa xafadtu wamaa callamtu farudduhu ilaya cindii xaajatii ilayh. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. gabagabadiina markasta waxaad ku soo gabagabaysaa inaad tiraahdo: yaa samadu anta thiqatii wa rajaa'i yaa samad.